gobolka Shabeellada Dhexe dawladda Soomaaliya markan waxay ku raajoogtaa ciidamadii taabacsan Sare Cabdulle iyo sidoo kale Maxamed waa markaasi Cabdullaahi Maxamed Nuur Jaamac wasiirkii hore ee amniga iyo markaasi Sare Cabdulle oo kamid ah saraakiisha ugu sareysa dawladda Soomaaliya waxaan kula wadaagi doonaa ciidamada dawladda oo gobolka Shabeellada Dhexe gaar ahaan aaga Cadale ama markaasi degmada Cadale ka wada raajooga ay ku daba joogaan ciidamadii markaasi ka soo goostay magaalada caasimadda ee Muqdisho iyo hubkii laga soo saaray gudaha magaaladaasi iyo faahfaahin kala duwan oo markaasi ka soo baxaya halka ay markaasi howlgalladu marayaan iyo sidoo kale muuqaalkan waxaan kugu wadaagi doonaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo markaasi laba arrin u tagay magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaaw Xuseen oo markaan ku looga dhawaaqay inuu markaasi uu ahayn musharaxii xisbiga JSB ayaad muuqaalkan ku daawan doontaan soo dhawaada daawadayaal taariikhdu waxay ku aasaasan tahay 11 bisha 6 Juun sanadda 2026 haddii aynu ku bilaawno Sare Cabdulle iyo sidoo kale waa markaasi ciidamadii taabacsanaa Cabdullaahi Maxamed Nuur wasiirkii hore ee amniga dawladda federaalka Soomaaliya ciidamadii taabacsanaa ee markaasi gaaray degmada Cadale ee gobolka waa markaasi Shabeellada Dhexe ayay dawladda Soomaaliya ku raajoogtaa waxay doonaysaa dawladdu inay markaasi gacanta ku soo dhigto hubkii laga soo saaray gudaha caasimadda Soomaaliya Muqdisho sidoo kale dawladda Soomaaliya ayaan hubkaasi ku raajoogtaa iyadoo howlgallo kala duwan ee ciidamada dawladda ay ka wadaan degmada Cadale ee gobolka Shabeellada Dhexe iyo deegaano markaasi Cadakibir ee u dhow degmada Cadale ee gobolka Shabeellada Dhexe dawladdu hubkan ay ku raajoogtaa waxay rabtaa inay markaasi gacanta ku dhigto iyadoo Cabdullaahi Maxamed Nuur laga wareegay hoteelkii uu ka lahaa magaalada caasimadda ee Muqdisho Hotel Elid kaasi oo markaasi gacanta ku dhigtay dawladda federaalka ee Soomaaliya wixii inta ka dambeeyay Cabdulle oo markaasi waa markaasi sargaal ka tirsan dawladda Soomaaliya ayaa ciidamo fara badan wuxuu ka soo saaray degmada Gubadle ee gobolka Banaadir waxaana ciidamadiisu inta badan ay gaareen gobolka Shabeellada Dhexe wixii inta ka dambeeyay dawladdu waxay ku raajoogtaa ciidamadaasi iyo hubka fara badan ee markaasi ay ka soo saareen degmada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxayna dawladdu ay doonaysaa inay hubkan ay markaasi gacanta ku dhigto dhinaca kalena ciidamadii daacaddu waa markaasi ama taabacsanaa Cabdullaahi Maxamed Nuur wasiirka hore ee amniga Soomaaliya iyo sidoo kale sargaalkan waa markaasi Sare Cabdulle ayaa iyagu waxay ku sugan yihiin qaybo kamid ah gobolka Shabeellada Dhexe waxayna halkaasi ka duwan markaasi ka wadaan howlgallo kala duwan ay markaasi ay sheegeen inay ammaanka deegaanadaasi ku xaqiijinayaan dawladda Soomaaliya hubka dhigis ay wada xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka waa markaasi ciidamo hubaysan ayaa la duldhigay waxaana la doonayaa in weerar lagu qaado Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa kamid ah mas'uuliyiinta sida weyn ay dawladdu doonayso inay mucaaradkaasi gacanta ku dhigto dhawaan ayay ahayd markii la sheegay in akoonada mucaaradka markaasi laga xayiray lacagii fara badnaa ee dawladaha markaasi shisheeyay ku daabulayeen taasi oo ay doonayaan inay markaasi ay ku kala jabiyaan xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka ee dawladda federaalka ee Soomaaliya dhinaca kale Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markaasi isagoo ku sugan magaalada Jowhar wuxuu amray ciidamada gobolka Banaadir in markaasi lala dagaalamo xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka ee markaasi uu sheegay inay qaska ka wadaan magaalada caasimadda ee markaasi Muqdisho mucaaradka Soomaaliya oo markaasi dhexdhexaadin markaasi ay raadeen xubno beesha caalamka oo dhexdhexaadin u joogay magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa iyagu ku guul dareysay inay markaasi si weyn ama markaasi ay ugu guuleystaan xiisadda ka taagan gudaha Soomaaliya Turkiga ayaana qayb ka ah dhexdhexaadintaasi waxaana laga waday magaalada caasimadda ee Muqdisho hase ahaatee dhexdhexaadintaasi ayaa gebi ahaanba u muuqata mid fishil ku soo dhamaatay kadib markii xubnaha beesha caalamka ay ku dhawaaqeen inay ku guul dareysteen dhexdhexaadin ay ka wadeen magaalada caasimadda ee Muqdisho mucaaradku waxay degan yihiin aaga Hotel Airport halkaasi dhaqdhaqaaqyo kala duwan ay ka wadaan iyagoo dhexdooda khilaaf ayaa laga soo warinaya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha hore ee Soomaaliya ayaana si weyn mucaaradka markaasi khilaaf ugu dhaxeeya iyagoo u diiday inuu markaasi uu la kulmo xubnaha beesha caalamka ama markaasi uu ergo ku yeesho dhinaca kale madaxtooyada Soomaaliya waxay wadaan dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay markaasi ku doonayso inay ku soo afjarto xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka ay sida weyn uga soo horjeeda dawladda federaalka ee markaasi Soomaaliya
waxayna ku raajoogtay ciidamada idaacadu ahaa Cabdullaahi Maxamed Nuur Jaamac iyo sidoo kale Sanay Cabdulle oo la sheegay inay hub fara badan ay markaasi kala baxeen gudaha magaalada caasimadda ee markaasi Muqdisho. Sanay Cabdulle oo markaasi sargaal si weyn dowladda uga tirsan oo hub weyn markaasi looga shaqeysan yahay ayaa isagoo ciidamadiisu waxay ku sugan yihiin duleedka waa markaasi gobolka Shabeellada Dhexe halkaasina ayaa la sheegay in hub fara badan la gaarsiiyay. dhinaca kale Cabdullaahi Maxamed Nuur oo laga wareegay milkiilaha ahaa hotelka Elid ayaa isagoo xilligan wuxuu ku sugan yahay magaalada caasimadda ee Muqdisho iyadoo dhammaan laga xanimay inuu ka baxo gudaha Soomaaliya. وهاجاك دنا عكرادي أينا يقولون مدحنا صومالي حسن الشيخ محمود أيوه وقاري مقالة الجوهر عاصمة دولة قبلات كيرشبيلة هالكاسم مشاريع ووين أيامات الغير جري علي عبد الله حسين علي قول له مدحوينها فرديت كدولة قبلات كيرشبيلة أيا يسوي علقان وحوم قدام ذي كرتجا في الصومالية كدي مركي وشيء من حنا صومالي حسن الشيخ محمود المركز في الصومالية يكسر دويين xubnaha hogaamiyay hore ee dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe iyo mas'uuliyiin kale oo markaasi ka socda dhanka maamulka Hirshabelle. dowladda Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud magaalada Jowhar ayuu ku sugan yahay ciidamo fara badan oo hubeysan ayuuna kula sugan yahay magaalada Jowhar caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle. mashaariic waaweyn ayuu halkaasi ka jaray waxuuna ku dhawaaqay in xisbiga GSB looga ololeeyo magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle kadib markii la sheegay in Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday ee maamulka Hirshabelle oo ku tartamayo kaarka xisbiga GSB. مسؤولين فربنا يا أنا ما أنت قارئ مقالة الجوهر عسى شيء قال إنك الدباء ما قال إنك هري بريء الرجاني إنه دب يقول لابتوه من حين الصومالي حسن الشيخ محمود وعون الشقي إن مركز وحي كدباء لقول أخاك دونا مامور كيرشبيلة كدي مركز لصوف جري مامور كدولة قبلات ككونفر قلب الصومالية يدو هالكاسي لو دورت شيخ هذا نور هذا المذوب بينه ونقدو وقامية سعدة مامور ككونفر قلب الصومالية. koonfur galbeed oo muddo dagaal ay ka socdeen ayaa waxa maanta si rasmi ah halkaasi loo wareegay shaqada Nuur Aadan Madoobe oo markaasi isagu musharaxa koobaad ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya iyadoo mas'uuliyiinta la tartamaysay ay markaasi ku eedeeyeen dowladda federaalka in doorasho markaasi hal dhinac ay ka qabatay maamulka koonfur galbeed Soomaaliya. Hirshabelle oo maamulka saddexaad ee dowladdu gacanta ku hayso caqabado waaweyn ayaa ka jiray waxaana la sheegay in Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe oo markaan uu tartamayo in markaasi uu ku guuleysto kursiga doorashada maamulka Hirshabelle. beesha xawaaldo oo markaasi degtay beesha gobolka Hiiraan ayaa si weyn uga tabanaysa maamulka Hirshabelle oo gaar ahaan Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe. balse dowladdu waxay sheegtay in markan ay diiradda saari doonto arrimaha markaasi la xiriira doorashooyinka ee maamulka Hirshabelle oo tan iyo markii koonfur galbeed dagaalku ka dhacay ay markaasi khilaaf oo ka dhax jiray ayaa kulan ay magaalada caasimadda Muqdisho ku wada qaateen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Cali Cabdullaahi Xuseen madaxweynaha maamulka Hirshabelle waxa laga heshiiyay arrimaha halkaasi ka jiray waxaana Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe loogu dhawaaqay inuu noqdo musharaxa ku tartamaya xisbiga kaarka GSB ee dowladda federaalka ee markaasi Soomaaliya. haddaba waxyaabaha ka soo kordha xiisada ka taagan gobolka Shabeellada Dhexe iyo ciidamada fara badan ee halkaasi ku sugan iyo dowladda oo ku raajoogta iyo sidoo kale oo markaasi xiisada gudaha Soomaaliya halkan ayaa si joogta uga daawo doontaan balse nagu soo biira oo muuqaaladeena dhameystira si shuruudaha markaasi noogu buuxisaan halkan isha ku haysi aad weeshaan xogi ugu dambeeyay aad baad mahadsantiin.